بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وبعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. walaalayaal, waa xalqadeennii labaad ee aan uga hadlaynay silsiladaheenii imtixaanaha ahaa oo aanu ku soo qaadan jirnay bishan ramadaan ee barakaysan si aanu uga faa'iidaysanno. waxaanu hore muxaadaradan ballanqaad aanu uga samaynay xalqada labaad inaanu uga hadli doono qaybtii labaad ee fiqhu siyaam ama soomka axkaamtiis. gaar ahaan waxay noo maraysay nawaaqid asiyaam, waxyaalaha soomka buriya. waxaanu soo qaadanay aljimaac, ninku hadduu xaaskiisii uu u galmoodo, waxaanu hore u soo qaadanay inuu kaasi uu yahay akbar nawaaqid siyaam, waa kan ugu weyn oo soomka buriya. maxaa yeelay nawaaqidka waxyaalaha kale soomka buriya, ninka hadduu xaaskiisa uu u galmoodo wuxuu uga duwan yahay, isagu soomkiina wuu buray, midda kale dembina yacni qofkaasi wuu galay. maalintaa inuu soo qadayana waa waajib. waxaa kaloo intaa dheeraad ah kafaarana waa lagu leeyahay, sida hore aan usoo faahfaahinay. 2 bilood oo xiriir ah oo hal maalin uusan afuri karin waa lagu leeyahay. waxaa kaloo waajib ku noqonaysa inuu rabbi uga toobad keeno subxaanahu watacaala khaladka uu sameeyey. haddii 2 bilood uu awoodi waayo xanuun iyo wax la mido ay jiraanna, waxaa waajib ku noqonaya inuu 60 miskiin walba uu siiyo hal koombo oo raashin ah oo aan shiidnayn oo ah xabbi saliim. nuqdada kale oo muhim ah oo khusaysa yacni mowduucan jimaaca khusaysa, isaguna nuqdadaasi waxay tahay qofka saa'imka ah oo sooman, maadaama la yidhi jimaacu waa ka xaaraan oo maalin ramadaan ah xaaskiisa lama jiifan karo, uma galmoon karo. hadduu u galmoodana waxa ka laasimaya waajibka aanu hore u soo qeexnay. xukunku muxuu yahay dhunkooshada marka? qofka sooman xaaskiisa ma dhunkoon karaa oo ma la faraka cayaari karaa? faraka cayaar aan jimaac iyo galmoodka aan ahayn ma la samayn karaa? hadduuse sameeyo oo biyo ay meesha ka yimaadaan oo gabadhii ay biyo ka yimaadaan ama ninkii ay biyo ka yimaadaan, biyaha waxaan ula jeednaa shahwada ama manida, xukunku muxuu noqon? horta koow waxa weeye gabadha iyo wiilka isqaba inay faraka cayaar sameeyaan oo ay isdhundhunkoodaan waa karaahiyo weeyo. waxaa markaas soomku ma burinayso haddii wax biyaa ama mani aysan ka imaanin, soomku ma burinayso faraka cayaarka maalinta ramadaan, laakiin waa karaahiyo. waxaa ka nusqaamaya ajirkii uu heli lahaa ayaa ka nusqaamaya. waxaase jiray xadiis imaamu lbayhaqi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa uu ku wariyey assunan اlkubraa oo kala qaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu kala qaaday qofka dhallinyarada ah iyo qofka waayeelka ah. oo xadiis caaisha waxaa jiray ana rasuula اllahi salى allahu calayhi wasalama rakhasa alqublata lishaykh, oo qofka waayeelka ah inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u rukhsadeeyey inuu xaaskiisii maalinta ramadaanka uu dhunkoon karo. laakiin wanahaa canha shaab, umuna caaisha waxay leedahay qofka dhallinyaradaana nabigu waa u diiday. nahyigaasna culimmadu waxay ku xambaareen nahyulkaraaha in loola jeedo, oo qofka dhallinyarada waa karaahiyo in xaaskiisa uu la faraka cayaaro ama uu dhunkoodo maalin ramadaan, laakiin qofka odayga ah ama waayeelka ah way u bannaanta. sababta qofka waayeelka iyo ninka dhallinyarada loo kala saarana waxa weeye qofka waayeelka ahi uu iscelin karaa, maadaama khibrad weyn ama uu maaragtaahay khibrad weyn uu ku leeyahay jaanibka haweenka, yacni shahwo fududaynaysa ama dedejinaysa ama gaarsiinaysa inuu xaaskiisa ku dhaco oo looga baqi maayo qofka waayeelka ah. waxaan kaloon looga baqaynin qofka waayeelka ah in ay biyo ay hore uga yimaadaanna yacni looga baqi maayo,
laakiin ninka dhallinyarada maadaama mowduucan guurka ah uu ku maman yahay oo mamanaasho weyn uu u qabo laba arrimoodba way ku iman karaan. waxaa ku iman kara inuu tarax tago oo farakacyaarkii iyo dhunkooshadii intuu ku tarax taro xaaskiisii uu u galmoodo oo dhib ka weyn meeshaasi uu ka dhaco. arrinta labaad meesha ka dhalan kartaa waxa weeye in maadaama hamuun ziyaado ah hawshan uu u qabo in biyihii ay ka yimaadaan oo soomkii sidaas uu uga buro. walidaalika xadiisu lbayhaqi sidaasaa yacni uu nabigu u kala qaaday sala allahu calayhi wasalam qofka waayeelka ah iyo qofka dhallinyarada ah. haddii aan marka usoo laabanno nuqdada ah soomku ma ku burayaa mise ku buri maayo. hadduu qofku xaaskiisa uu la farakacyaaro maalin ramadaan mani aysan ka imaanin labada dhinacba wiilka iyo gabadha wax soomkii yacni nawaaqid ah oo ku dhacaya naaqid ah soomkii uu ka burayo ma lahan. haddii laakiin biyo ay ka yimaadaan oo mani ay ka timaado gabadha iyadoo ninkeeda la farakacyaaraysa ama wiilkii isagoo xaaskiisa la farakacyaaraya mani ay ka timaado soomkii halkaas ayuu ku buray, laakiin wax kafaaro ah oo laga doonayo male. waxaa laga rabaa maalintaa inuu dib uu usoo qadeeyo ayaa markaas waajib ku noqonaysa, laakiin kafaaro iyo raashin kale lagama rabo. waxaa kale oo ka mid ah waxyaalaha nawaaqidu siyaam ah ee soomka burinaya istikhraaju lmani, qofku inuu mani uu iska keeno biayi sabab min alasbaab, asbaabtuu doono ha isaga keeno. hadduu si ula kaca oo kasa uu mani isaga keeno, tusaale ahaan wuxuu isaga keenay gacantiisa, waa istikhraaj mani oo xaaraam ah, gacantiisuu biyo isaga keenay isagoo sooman, ama xaaskiisa ayuu biyo isaga keenay xaaska gacantiisa, ama jirkeeda meel ka mida ayuu biyo isaga keenay. iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha soomku uu ku buraayo qofkaasina uu ku dembaabayo. nuqdada kale aanu rabno inaan taabanno ama aan ka hadalno fiqhiga siyaamka ka mida waxaa weeye al-inzaal min gayri camdin. qofka haddii maniyu ay ka timaado wiilkii iyo gabadhii soomanaa laakiin uusan u kasin oo manida asagu kas uusan isaga keenin, xukunkeedu maxay noqon? taasi waxa weeye wax dhibaato ah oo soomkiisa ay gaarsiinayso ma lahan. tusaale ahaan qofkii dhallinyarada ahaa wuu fekeray, xaaskiisii ku fekeray, naagtii ayuu ku fekeray, sidaasaa maniyu uga yimaadeen. ama gabadhii way fekertay iyadoo hawl ama maaragtaahay ninkeedii ayay ku fekertay hawl la wada ayay maskaxda uga fekertay, sidaasaa biyo uga yimaadeen ama maniyu uga timid gabadhii. wax soomkii uu ku burayo taasi ma lahan. maxaa yeeley kas wax uga yimid ama farakacyaar uga yimid ma aha, waa wax fikir maaragtaahay uga yimid. sidaas awgeed soomkii ka buri maayo. sidaasayna yacni qabaan jumhuur alculamaa oo uu ka mid yahay saxaabada qaybo badan ee ka mida, ay ka mid yihiin taabiciintii sida sufyaan athawri iyo jaabir ibnu zayd iyo abu thawr. madhabka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala isaguna sidaas ayuu qabaa. waxaa kaloo iyaduna nuqdo la xiriirta ay tahay munaasib u ah qofkii bil ramadaan maalin ramadaan isagoo hurdaya maalin ah hadduu isku janaaboodo intuu riyoodo, hadduu riyoodo ninkii ama gabadhii ay riyooto oo sidaa mani labadoodii uga yimaadaan, xukunku muxuu noqon? taa xukunkeedu waxa weeye wax dhibaato ah oo soomkii way u geysanayso manida isagoo qofku hurdaya ka timid ma lahan. maxaa yeele manidani qofku markay ka imaanaysay wuxuuba ka baxsanaa xuduudu takliif, mukallafba ma ahayn. qof shareecadu ay yacni mukallaf ka dhigtay maba ahayn oo caqligiisa iyo dareenkiisa iyo maskaxdiisuba way maqnayd oo waa hurdaayey. oo marka wuxuu soo geli dadkii marfuucul qalamka ahaa oo qalamkiisa yacni laga kor yeelayo. nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi xadiiskii saxiixa rufica alqalam can halaath, saddex qof waxba looma qoro. saddexdaa waxaa ku jiray can inaa'im xataa yastayqid, qofku hadduu hurdayo ilaa uu hurdada ka soo tooso waxba looma haysto wuxuu samaynayo intuu hurdada ku jiro. marka qofkii hadduu intuu hurday riyooday maalin ramadaan biyo ay sidaa uga yimaadeen ninkii ama naagtii, wax ramadaankiisii ama soomkiisii dhibaato ah oo arrintaas ay u geysanayso ma lahan. waxaa kaloo iyaduna nuqdadan arrin la xiriirta ay tahay haddii qofkii wiilkii ama gabadhii labadii isqabay lamaanaha ahaa habeenkii hadday jimaac sameeyaan oo habeenkii ay isku galmoodaan, ilaa habeenkii ilaah u baneeyey subxaanahu watacaala, bisha ramadaan habeenkeeda ilaah u baneeyey cuntadii, cabitaankii, jimaacii, intaba ilaahay u baneeyey subxaanahu watacaala.
labadii isqabay habeenkii hadday isu tagaan laakiin isla habeenkii aysan qubaysan oo salaadii subax lagu addimay iyagoo sidii janaabo u qaba oo salaadii subax markay dhalatay ka bacdi uu qubaysto qofkii oo janaabo ay ku soo gaarto bacda tuluuci alfajri xukunku muxuu noqon taas iyaduna wax dhibaato ah oo soomka u geysanayso ma laha maalmaha habeenada ramadaanka haddii ninka iyo naagtu ay isu tagaan isla habeennimo inay qubaystaan waa sida wanaagsan oo sunno ah laakiin haddii hurda ay la tagto oo salaadii subaxa lagu addimo oo salaadii subax markii la addimay ka bacdi hurdada ay ka soo toosaan oo ay subaxii iska qubaystaan falaa ba's wax dhibaato ah oo soomkii taasi ay u geysanayso ma jiro maxaa yeele xadiis waxaa jiray bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayaan oo min xadiisi caaisha wa ummu salama kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yusbixu junuban min gayri xulmin huma yasuumu rasuulku sala allahu calayhi wasalam caaisha iyo ummu salama labaduba waxay leeyihiin maalmaha qaar ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam uu waa beriisan jiray oo salaadii subax ay ku dhalan jirtay isagoo janaabo qaba nabigu sala allahu calayhi wasalam janaabadaasoo aan ahayn calwasaad ama ruyo uu ru'yooday nabigu sala allahu calayhi wasalam aan ahayn ahayd yacni janaabo jimaac ku timid markaa ka bacdina rasuulku soomkiisii ayuu iska sii wadan jiray sala allahu wasalama wabaaraka calayh waxaa kaloo nawaaqidu siyaam ka mid a matagga si ula kaca qofku hadduu u matago matag intuu far isgeliyo ama caday uu isgeliyo uu sidaa uu u matago si kasa uu u matago iyaduna waxay ka mid tahay nawaaqidu siyaam oo soomkii meesha ayuu ku buray laakiin haddii matagu uu qofku uu ka soo fakado ama uu soo dirqsado matagu oo qofku intuu lalaboodo matagu uu yacni xoog uu uga yimaado oo isagu uusan iska keenin taasi wax dhibaato ah oo soomkii ay u geysanayso ma laha maxaa yeele taa waxaa tusinaya xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah intuba ay warinayeen oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi man daracahu lqay falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a camdan falyaqdi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii matag iska keena ha soo qadeeyo yacni soomkii wuu ka buray maalintaana waxaa lagu leeyahay inuu dib ka soo qadeeyo laakiin qofkii matagu uu ka yimaado oo matagu uu soo diriqsado isagoon isagu iska keenin wax qada ah oo lagu leeyahay ma laha soomkiisuna yacni waa saxiix ayuu rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo nawaaqidu siyaam ka mid ah oo dadku inta badan ba ay wada ogsoon yihiin alطacaam waasharaab qofku hadduu wax cuno ama uu wax cabo haba yaraada hal xabo oo masago ah ama hal xabo oo sisin ah hadduu qofku laqo soomkii wuu ka buray yacni shardi ma aha biyaha wax badan inaad ka bato cunto badan inaad cunto shardi ma aha xabad sisima haddii aad cunto ama biyo yacni hal dhibicoo biyo ka mid a aada cabto soomkii halkaas ayuu kaaga buray waxaa muhim ah inaan isku baraarujinno waxaa soomka burinaya wax walba oo joofka gudaha gala wax walba ee gudaha gala cunto iyo cabitaan kaliya ma aha tusaale ahaan waxaa ka mid ah ninkii ama gabadhii soomanaa daawa loo soo qoray oo dhegtaa xanuunaysa dhegtiiyu goojo isaga subay qofkiina wuu sooman yahay maalintii goojadii isku subo goojadii uu isticmaalay soomkii waa ka buray maxaa yeele wax walboo gudaha gala cunto iyo cabitaan kaliya ma aha wax walboo gudaha gala ayaa nawaaqidu siyaam ah ee soomkii burinaya waxaa kaloo sidaas oo kale la mid ah tusaale ahaan qofkii sankii uu ka xanuunsanayay dhakhtarkiia wuxuu usoo qoray goojada sanka sankii marka goojadii uu isaga dhibciyo isaga shubay soomkii wuu ka buray waxaa kaloo la mid a sidaas oo kale dadka bawaasiirta qaba bawaasiirka meeshii yacni xuqnay sameeyeen oo meeshii yacni dabadii ayay daawo isaga shubeen qofkii isagoo sooman maalin ramadaan dabadii daawo isaga shubay bawaasiiraan iska daaweynah uu leeyahay maalintii ramadaan soomkii waa ka buray wax walba gudaha u gudba oo yacni gudahaba gala soomkii waa kaa burinaya waxaa la mid a sidaas oo kale gabdhaha marka dhakhtarku uu wiisateynayo oo kale oo maalan tusaale ahaan gabadhii waa la wiisiteeyey faraa la geliyey far ayaa la geliyey iyadoo la wiisiteynayo soomkii waa ka buray maxaa yeelay
يعني شرعي الإسلام كوحو قبا وحوالبا جودها قلا إن صومك وكابر أيو معها يعني عنتان يعبتان كريه معها ولذلك قبلها وحلو بان هدي إسداوين يان إن دخترك أي لحريران أو أي تجان يعني رمضان كمركو رمضان أما رمضان ككهر أما هبينكي إن دخترك يراهن ويسته لكن مالين رمضان هدي قبله أي تكتور دختركو ويستيو أو فرق وجريو صومك هالكاس أيو وجبري لكن وحى شرط marka aanu leenahay oo shariicada islaamku ay leedahay wax walba gudaha gala soomki waa burinay shayga gudaha galaya waa inuu gudaha u galo meesha uu ka galayo waa inay tahay manfad maftuux yani duleel ilaahay awalba hore uu u sameeyay markii duleelka ilaahay horeba uu abuuray ay wax ka galaan markaas way marka soomku uu ka buray tusaalahan dhigtii way duleesha indhihii yani waxaan indhaha kuma jiraan waxa duleela oo kale sankii waa duleela oo kale dabadii way duleeshaa meelaha duleela haday wax ka galaan markaas way marka soomku uu buray ama hadii meel adigu aad jeexday oo duleelisay meel adigu aad duleelisay hore aan u furnayn hadii ay wax ka galaan ama aad wax iska geliso taas wax dhibaato ah soomkii u keeni maayo tusaale ahaan qofka sooman isagoo sooman ayuu wuxuu qaatay yani ibro qaatay yani waxa weeye waa faleenbada faleen buu isku muday oo xididka uu ka qaatay faleenbadii wax dhibaato ah oo soomkii yani taasi ay gaarsiinayso ma lahan maxaa yeelay sharcigu wuxuu ku leeyahay manfad maftuuxa waa in qofku uu wax iska geliyo markuu meel furnayd oo ilaahayba hore u furay uu qofku wax isaga shubo ama uu wax iska geliyo markaas way marka soomku uu ka burayo ama qofka sooman dhiigu iska qaadi karaa maalinta ramadaan maxaa yeelay manfad maftuuxa ma aha meel furnayd ma aha meesha cirbada la gelinayo wuxuu samayn karaa sidaas oo kale faleen buu isku mudi karaa waa is cirbadayn karaa dhiigu iska qaadi karaa waxyaalahaas oo dhan yani soomka nawaaqidkiisii kamid ma aha oo waxyaalaha soomka burinaya kamid ma aha waxaa kaloo muhiim inaan isku baraarujino oo nuqdadan iyaduna xiriir la leh ibtilaac maa yabqa bayna alasnaan suxuurtii qofku uu xalay raashinka uu ku suxuurtay hadduusan si wanaagsan uga luqluqan ama si wanaagsan uusan uga cadayan haddii ilkaha wixii ku jiray isagoo tufi kara oo iska tufi kara hadday ku fakadaan waa gooni isagoo tufi kara oo awood u leh inuu inta iska soo bixiyo wixii ilkaha uga haray oo ilkaha ka galgalay uu laqo oo si toosa uu u laqo soomkii isaguna halkaas ayuu ku buray waxaa kaloo muhiima oo iyaduna inaan isku baraarujino laga maarmaan ah qofku markuu weesaysanayo weesada waad aragteen nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wuxuu sunneeyay almadmada wal istinshaq in la luqluqdo sankana la daarsado oo biyaha sanka lagu yiraaho ayaa sunna ah laakiin xilliga ramadaanka istinshaqi iyo madmada labaduba sidii ayay sunna u yihiin laakiin waxaa muhiim ah inaadan ku xeel dheeraan haddii laakiin luqluqashadii afkii biyihii adigoo sooman intaad ku shubato qoortii aad kor ula taagtid oo biyihii ay sidaa kuugu fakadaan soomkii waa kaa buray ama sankii aad biyihii gashatay adigoo weyse qaadanaya waad ku xeel dheeraatay biyihii yani biwaasidati manfad ilfam ayay kaa galeen oo sidaasay gudaha ay biyihii ay u galeen soomkii isaguna waa kaa buray maxaa yeelay xadiis abu daawuud uu warinayay ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'ima luqluqashada iyo sandaarsiga ku xeel dheeraaw ilaa inaad sooman tahay mooyaane ama haddaad sooman tahay haddaad ku xeel dheeraato biyihii gudaha ay kaa galaan soomkii halkaas ayuu kaaga buray waxaa kaloo iyaduna muhim ah oo masale muhim ah inaan isku baraarujino ah الاكتحال في حالة الصوم ما بنانتها إلا إن كوشو أو إن كل مرصده قفكو يسقو صوما جوابته وها ويبنانتها محايا لي إن كوشا ماشان أياد مرين مويه واحد جودها وجود بيا أما علاش الجوفك وجود بيا معها تاسي مركا ويبنانتها وحكلو سيداس وكلا مهمة أيضنا إن نسكب براروجينو الحجامة
الحجامة في الصيام قفك أسقو صوما يعني ما استوبي كرا أسقو صوما ما استوبي كرا أسقو صوما واستوبي كرا قفك أما حديث كده هي أفضل الحاجم والمحجوم كي لا توبي إيه كي توبي لبضو بصومك وكبري والنبي كيري صلى الله وسلم وبارك عليه إمام الشافعي وحو عديي حديث كاس إنه منسوخ يهي أولا نسخي أو حديث كلا وكدن بيي احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم حديث كاس الدن بيي نبي هو استوبي إساقو صوما marka taas xadiiskii hore waxa nasakhay xadiiskan kale ee ka dambeeyay ee nabiga ficilkiisa uu ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam nabigu inuu istoobay isagoo sooman toobintana waxa macnaheedii ah dhiig iska qaadida ayadana way banaan tahay waxa kale oo banaan qof dhaawaca inaad dhiig u shubto qof dhaawaca inaad dhiig u shubto adigoo sooman maxaa yeelay dhiigga marka laga shubayo xididkaas cirbad laga gelinayo manfadkii maftuuxa sankana laga gelinayo dabadana laga gelinayo cirbada manfad maftuuxa laga gelinayo manfad غير مفتوحه او من طريق العضلات ومن طريق يعني المنافذ غير المفتوحه ayaa dhiigga laga qaadi marka qofku haduu sooman yahay isaguna waa sidaas oo kale dhiigga uu iska qaadi karaa uuna istoobi karaa taasi wax dhibaato ah oo u geysanaysan malahan waxa kale oo muhiim ah iyaduna nuqdadan inaan ka hadalno dadka neefta qaba oo yani bakhaakha ay sameynayaan bahalkan bakhaakha ay isku buufinayaan kaas isaguna waa min nawaaqid asiyam soomka waa burinay maxaa yeelay waa wax jawfkii iyo gudihii u gudbaya wuxuu la mid yahay sigaarka oo kale sigaarku isaguna waa nawaaqidu asiyam lama dhahayo wax loo jeedo ma aha waaqiiq oo wax loo jeedo aniga igelaya ma aha maxaa yeelay shayga sigaarka qiiqiisa hadii la aruuriyo qiiqaasi wuxuu yeelanaa cayn wax la arki karo tusaale ahaan qofkii sigaarka cabaya markuu warqad A4 oo kale markuu soo qaado oo markuu sigaarka cababa uu ku afuufo warqada A4 ka ahayd waxaan arkaynaa meeshii in athar iyo raad madow ay yeelanayso sanbabihiisuna qofku saas oo kale ayuu u madoobaan oo dhaawac iyo dhibaato uu isugu geysan walidaalika sigaarka in la cabo waa xaaraan maxaa yeelay dhakhaatiirtu waxay isku waafaqeen oo ay cadeeyeen inuu caafimaadka dhib weyn u geysanayo khusuusan sanbabaha uu dhibaataynayo marka ugu dambeysana ay laga yaababa in sanbabihiisa yani ay ka dhalato cudurkan la yiraahdo kansarka marka qofku haduu soomayo sigaarku isagoo xaraam ah cabitaankiisa haduu hadana isagoo sooman uu sigaar cabo isaguna waxay kamid tahay min nawaaqid asiyam waxyaalaha soomka burinaya ay taasi kamid tahay waxa jira marka oo iyaduna muhiim ah inaanu isku baraarujino waxyaalo waxa jira soomka aan burinayn laakiin hadana ka baabiinaya ajirkii soomka ka baabiinaya waxa kamid ah sida hore aan u soo qaadanay farakacayaarka haweenka xaaska la farakacayaaro maalin ramadaan dhunkooshada la dhunkoonayo maalin ramadaan xaaska la dhunkoonayo ayaa kamid ah soomka nawaaqidkii kamid maaha laakiin waa makruuh ajirkii iyo khayrkii iyo barakaadkii iyo nafaxaadkii soomka aad ka heli lahayd ay ka baabiinayaan waxa kale oo makruuhaadka soomka kamid ah calalinta yani cuntada inaad calaliso oo si aad dhadhankeeda u dareento hadhowna waad soo tufiyo ma laqaysid waa karaahiyo ilaa laakiin waxa shariicada islaamku ay ka soo reebtay gabadha hooyada caruurta aan soomanayn u karinaysa qadada hooyadiina ay sooman tahay caruurtiina aysan kala garanaynin cuntadu inay bislaatay iyo inay dhadhamaysay in kale aysan kala garanaynin waxa u banaan hooyada inay u calaliso oo cuntadii dhadhankeedii markay dareento ay iska tufto haday laqdo soomkii waa ka buri marka taas oo kale hooyada daruura ahaan yani karaahiye maaha inay caruurteeda ay u dhadhamiso waxa kale oo kamid ah sidaas oo kale waxyaalaha makruuhaatu siyaam kamid ah cadayga bacda zawaal yani wixii ka dambeeyaba duhurka wixii ka dambeeya in la cadaysado waa karaahiyo sida uu qabo imaamu shaafici rahimahullahu tacaala waxaa kaloo sidaas oo kale ku tegay oo sidaas oo kale qaba taabiciga la dhihi jiray cadaa ibn abi rabax ee ardaygii cabdullah ibn cabbaas ahaa mufasirkii weynaaye taabiciga ahaa
لديه جري مجاهد ابن جبري تابعين تي صحابة قيبة كميدا وبدن وحي قبان إن عديقا دهرك وحي لقب الله بابا دهرك هدي لقارو مالي رمضان وكراهيه أيقو مركز الدليل شنايا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بخاري مسلم أي كورينيين والنبي كويري صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يعني حيابدا اسكو قاداميسا أفكا قفكا صوما حيابداس إلهي وكجعل يهي مسكا متكا أدوك بدن إلهي وكجعل يهي مركا إمام الشافعي ضدك كرها عيبا وحي إليهن حديثك محلقة قادا خلوفك وحر الشاهي إليهن بعد الزوال زوالك بعد ظهرك كبعدي أي حيابداس أفكا أي كرلتها ولذلك ما دام إلهي أكتسا آد لو جعل يهي حيابدا إن للزوليو وكراهيو وحين أوقع قياس قادنا ينديك قفك الشهيد كاه qofka shahiidka ah jihaadka ku dhintay dhiigiisa lama ogola in la mayro isagoo dhiigi urayo oo dhiig bini'aadamku qurun u yahay oo urayo haddana yaa la zuulinaya qofka shahiidka dhiigiisa limaada ilaahay agtiisu qaali ka yahay ilaahay agtiis ayuu qaali ka yahay marka waxay uga qiyaas qaateen haddana dhiigii shahiidka waxa kale sidaas oo kale karaahiye ah oo laakiin soomkii aan burinaynin aflagaadada qofka isagoo sooman xanta waxyaalahaasi soomkii ma burinayaan laakiin ajirkii baabi'inayaan xantu iyadoo xaraam ahayd cayday aflagaadada oolba xaraam aha soomkana waa ka sii daran waa xaraam yani aad u sii daran laakiin soomkii yani ma burinayaan waxaa kaloo iyaduna muhiima inaan isku baraarujinno manduubaat asoom waxyaalaha soomka loo sunneeyo waxaa ka mid a suxuurta qofka sooman yani si kasta oo uu berri u soomi karo oo u adkaysan karo gaajada iyo haraadka waa cibaado suxuurtu waa nuqda yani muhiim inaan isku baraarujinno suxuurtu ma aha caado iyo habdhaqan waa cibaado walidaalika hal galaasoo biyaaba aad cabtide isku day inaad suxuurato maxaa yeelay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayuu wuxuu ku yidhi tasaxaruu fa inna fi suxuuri albaraka suxuurta maxaa yeelay suxuurta baraka ayaa ku jirta wi rasuulku sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi waxa kale oo sunnooyinka soomka kamida in suxuurta dib loo dhigo ilaa qadar 50 aayadood laga akhriyo oo kale ayaa aadaanka salaada subax iyo suxuurta nabiga u dhaxayn jirtay sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi suxuurta marka in dib loo dhigo oo aan hore laga suxuurano yani 7 saac iyo 8 saac 9 saac aan la suxuuran ayaa muhiim oo ilaa 9 saac bar ilaa 10 saac in la suxuurto ayaa sunna ah oo suxuurta dib loo dhigo waxa kale oo sunna ah afurka in la dedejiyo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi wuxuu yiri la tazalu ummati bi khayrin ma ajjalu al-ifdar wa akharu as-suhur xadiiska imaam ahmed uu warinayay ummadaydu khayr kama zuulayaan inta ay afurka ay dedejinayaan suxuurtana ay dib ay u dhigayaan marka afurka in la dedejiyo markii la hubsado qorraxdu inay dhacdo suxuurtana dib loo dhigo ayaa sunna ah waxa kale oo sunnooyinka kamid ah in la duceysto marka la afurayo qofku markuu afuro inuu duceysto iyaduna waa sunno oo qofku wuxuu ku duceysan wuxuu leeyahay allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu dhahaba adh-dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru in sha Allah ta'ala ilaahu adiga ducada macnaheedu maxay tahay ilaahu adiga dartaa ayaan u soomay irsaaqadaadiina waan ku afuray oonkii wuu iga tagay oonka iga baabiyay fadligaaga iyo raxmadaada xididadii ilaahu way qoyeen ajirkiina wuu sugnaaday in sha Allah ta'ala ducadaas inuu ku duceysto ayaa sunna ah qofku markuu afuro maxaa yeelay Abu Daawud ayaa sunankiisa ducadaas ku wariyay waxa kale oo sunna ah in la badiyo bisha Ramadaan sadaqada iyo tilaawatul Qur'aanil Kariim qofkii inuu sadaqada badiyo Qur'aanka Kariimkaana akhriskiisa uu badiyo maxaa yeelay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi ayaa sidaas ahaan jiray oo Qur'aanka akhrintiisa iyo sadaqada ayaa cibaadada nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi aad ugu badnayd waxa kale oo marka muhiim ah oo aanu ku soo gabagabaynayna in sha Allah ta'ala xagga yani qadaha iyo fidyada ahkaam khusaysa qofku hadduu musaafir yahay ummadda dhan waxay ku ijmaaceen ama culimada dhan ay ku ijmaaceen qofku hadduu safar uu galo waxa u banaan inuu iska afuro
maalmaha uu afuray laakiin dib inuu ka soo qadeeyo ayaa waajib noqonaya. laakiin safarka waxaa muhiim ah ma aha hadda muqdisho aanu joognaa markaan muxaadarada hadda akhrinayno ma aha inaad yacni u safarto ceelasha biyaha intaad gaartid ama afgooye aad tiraa afgooye aad safar tiraaho afurahay waa in ugu yaraan 90 kilomitir meel jirta safarkaagu uu yahay ama diyaarad ku safar ama gaadiid ku safar ama lugee waxaad doonto samee haddiiba 90 kilomitir meel jirta aad u safrayso waxaa ku bannaan inaad maaragtaa iska afurto dibna markaas aad ka soo qadayso. laakiin sida wanaagsan markii aan fiirino haddii soomkii dhibaato weyn uusan kugu hayn oo aadan ku dhibtoonayn waxa ku fadli badan inaad iska soomto xataa adigoo musaafira. haddii laakiin naftaada uu dhibaato u geysanayo soomka uu ku dhibayo waxaa markaas fadli badan inaad afurto inaad ku afurto hadhowna qofka waxaa laga rabaa dib inuu u soo qadeeyo laakiin wax fidyo ah oo raashin ah lagama rabo. dadka waayeelada ah qofku hadduu waayeel yahay hadduu yahay oo soomkii uusan awoodi karin oo dhibaato uu kala kulmayo hadduu soomo waxaa sharciga islaamku markaa uu jideeyey in laga bixiyo fidyo waa raashin maalin walba hal koombo ama qamadi ka dhig ama ganley ama bariis ama digir ama masago wixii kuu fududaada halka yacni laga bixina. waxaa kaloo qofka waayeelka la mida qofka xanuunsanaya xanuunkiisina dhakhaatiirtu ay caddeeyeen inuusan ka bogsanaynin oo uusan ka raysanaynin isagana waxaa laga bixinaa fidyo. qofkii marka xanuunsanaa haddii xanuunkiisa uu rajo leeyahay oo dhakhaatiirtu ay caddeeyeen in xanuunkani uu rajo leeyahay oo laga bogsoonayo isagu waxaa lagu leeyahay qado oo kale ah qado kaliya lagu leeyahay maalintii uu caafimaado ayuu dib u soo qadaynaa maalmihii uu afursanaa. haddii laakiin qofku xanuunkiisii uu ku dhinto oo fursad uu ku qadeeyo uusan helin xukunku muxuu noqon? haddii qofku fursad uu ku qadeeyo uu waayo xanuunkii intuu sii dheeraado jiradiisii uu ku dhintay falaa qadaa walaa fidya wax qadaana laguma laha wax raashinana lagama rabo maxaa yeelay fursadba ma helin uu ku soo qadeeyo. amaa qofkii xanuunsanaa haddii ilaahay xanuunkii uu ka caafiyey oo siduu qadaha dib ugu dhigayo waad soo qaday doontaa isagoo leh isagoo jaanis uu ku soo qadeeyo uu soo maray ayuu sidaas uu u geeriyooday. qofkaas hantidiisa hadhow hantidiisa in fidye laga bixiyo ayaa waajib noqonaysa. yacni haddii 30 maalmood oo kale oo bishii 30 ay ku dhamaatay 30 maalmood oo kale lagu lahaa saas uu dhintay asagoo fursad heli kara qofkii oo ilaahay uu caafiyey uusan soo qadaynin hantidiisa waxaa waajib noqonaya 3 koombo maalmihii lagu lahaa qadarkoodii in laga bixiyo ayaa waajib noqonaysa. waxaa kaloo bannaan in laga soomo oo maalan 20 maalmood ama 30 maalmoodaa lagu lahaa mana soo qadaynin fursadna uu haystay in yacni qof uu ka soo qadeeyana yacni uu laga soomo iyaduna sharcigu wuu baneeyey. marka muxaadaradeennii ama xalqadeennii labaad oon uga hadlaynay fiqhu siyaam halkaas ayaa rabaa in aan ku soo gabagabayno insha allahu tacaala. ilahay waxaan weydiisanaynaa ilahay ramadaanka inuu naga aqbalo leylatulqadrigana ilaahay uu na waafajiyo ilaahayna kuwa naarta laga xureeyey bisha ramadaan oo barakaysan ilaahay ha nagu daro dhammaanteenna ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdows nasiibkeenna ilaahay ha ka dhigo xusnulkhaatimana ilaahay hana siiyo waddanka soomaaliyana ilaahay subxaanahu watacaala islaax caama allah noo siiyo burburka iyo dagaalada iyo fitanta iyo dadka soomaalida quluubtoodu kala jeestay oo isnacay bedelkooda ilaahay naxariis iyo isjacayl qulubta soomaalida ilaahay subxaanahu watacaala ha ka buuxiyo ilaahayna xaqa soomaalida allah ku mideeyo dowla oo islaamka yacni kor u qaada oo diinta waddanka ku tadbiiqisay ummaddana ilaahay subxaanahu watacaala waddankana nooga dhaliyo hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.